maamulka degmada Burco ugu horeeya maayir ku-xigeenka degmada Khalid Xasan Xaaji Diiri ayaa maamusay gudoomiyaha Burco Central University College Marwo Faadumo Ismaan Axmed oo kaalin muhiim ah kaga jirta soo saaridda mihnadlayaasha caafimaadka gobolada bariga Somaliland iyadoona tacab badan gelisay soona saartay xirfadlayaal caafimaad oo gobolada bariga Somaliland kaalin muhiim ah ugu jira tacabka iyo miro dhalka Marwo Faadumo Ismaan Axmed ay gelisay gobolada bariga wuxuu horseeday in ay yaraato dhimashada hooyada iyo dhallaanka ee dhibaatooyinka kala duwan mari jiray iyadoona maamulka degmada Burco oo dareesan kaalintaasi muhiimka ah ee ay ugu jirto Marwo Faadumo Ismaan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolada bariga Jamhuuriyadda Somaliland ay munaasibadan maamuusida iyo dhiirigelinta ah ay u qabteen taasi oo looga mahadnaqaya abaalka iyo tacabka ay gashatay bulshada madasha waxaa ka soo qayb galay isla markaana goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Togdheer agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Abubakar Wiile Bigile isuduwayaasha hay'adaha dawladda gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka iyo mudan kale ugu horreynna madasha waxaa ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Burco Khalid Xasan Xaaji Diiriye macallimadeena maamadeena Faadumo Ismaan waad mahadsan tahay waxaad ku mahadsan tahay waqtigii iyo dadaalkii aad bulshadaada gelisay dadaal qiimo badan leh oo midho dhalay ah aniga historygeeda iyo taariikhda iyadu samaysay baa iskaaga baray taariikhdeeda muggalay iyo waxtarkeeda degmada Burco oo aan ka shaqaynayay anigu 5 sano ugu dambeeyay tuulo kasta iyo magaalo kasta tago waxaan ugu tagay raadkeeda taariikhdeeda waxaan ugu tagay halgankii ay dadka gelisay midho dhalkiisii degmo kasta waxaan ugu tagay hablo mulisooyin iyo nees oo ka soo aflaxay iskuulkeeda taa markaad qiyaasto gobolkeena inta leeg iyo gobolada kale ka go'ay daad mareed ama degmadeena Shiikhe gobolka Saaxil dhammaan meel kasta tagto raadkeedii waad ugu tagaysaa juhdiga inta leeg ee ay bulshadeena gelisay ee dadkeena gelisay ay hooyooyinkeen ku badbaadeen ee caruurteena ku badbaaday oo wax aad caqiibo leh marka sidaa daraadeed ayaan anigu in badan aniga shakhsiyan is weydiinayay oo lahaa hadda reer Burco nahay inagu dad bayna lagu waynahay dhig kulul oo Soomaalida kaleena wayna majeerata haddana yani waxa ku yar magaalada ama magaaladeena waxa ku yar dadkeeda hal doorka ay degmada jooga waxa laga yaabaa Faadumo Ismaan imka hadday gobol kale inta ka sameyn lahayd inay gidaaradeena ku qornaan lahayd barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Abubakar Wiile Bigile iyo mudan kale ayaa tilmaamay dhankooda doorka iyo kaalinta muuqata ee ay ku leedahay Marwo Faadumo Ismaan Axmed horumarinta caafimaadka gobolada bariga iskuulka Nerestaanu 2010kii waxaanu ka doonanay iyo mulisooyin free bay uga dhigtay hadday tahay Odweyne hadday tahay Buuhoodle Aynaba inta gobolka ku xeeran ilaa Saaxil leedahay ilaahay ka abaal mariyo dadkaaguna uu ku hayaa maadaama ay rabnay in ummadda kalena ku dayato waa inaynu aad iyo aad u maamusnaa maayir ku-xigeenku xafladda soo qabanqaabiyeyna isagana aad baan ugu mahadnaqayaa laakiin mid ka sii qurux badan baanu annaguna gobol ahaan ugu ballan qaadayna inaan samayno si aan u dhiirigelino oo runtii dalka qayb badan ka qaatay dalkan dhismihiisii qayb libaax ka soo qaatay Faadumo Ismaan sida aynu ka warhayno waxay soo saartay jiil tayo leh waa sadaqo jaariya jiilkaasi wuxuu kala dhaxli doonaa cilmiga jiil ilaa jiil waa mid weligeed u socon doonta bil xaqiiqana waxa weeye ducada iyo amaanta iyo halka laga soo yubaan aniguna halkii uu ka sii qaaday qofka ugu horeeyaan ku dhiirino weeyaan anigu waxaan oran lahaa inay noqoto oo loo bixiyo maamada Togdheer taa laga yiri ee wanaaga ee ducaa iyo in ka badanba waan la qabaa hooyadu asalkeedaba Faadumo kaliya maahe hooyadu waa cajaayib iyo maanta aanay weli ka caajisinaay meeshii meel ka sarreysa ee sii marnayaan oo ay jaamacadba u sii gudbeen qofkii wanaag idin sameeya u abaalgudo wax ugu abaalgudo wuxuu siiya fa in lam tajidu ma tukaafiuunahu fad'u lahu haddaydan u helin waxaad siisaan u duceeya waxay u noqonaysaa inuu qofku fahmo in ummadi ka dambayso cidi ka dambayso oo meesha qofku uu ku jiro la fahamsan yahay Soomaaliland hadaynu nahay dabeecad baynu leenahay inaan Soomaalida la qabino ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa caawin soo gaarsiiyay iyadoo
hal door ka mid ah hal doorka reer Soomaaliland reer Togdheer reer Burco la maamuusayo in Ilaahayna soo gaarsiiyay Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa Faadimo Cismaan diric kaliya ahaantii daleel guusha kama helo dadka geesi lagu yahay Faadimo Cismaan Axmed tahay qof mudan intan iyo in ka badanba in loo sameeyana u qalanta mar kale maayir ku xigeenka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantay dhinac marka laga eegana anagu bax caafimaad ahaan ama wasaaradda caafimaadka ama guud ahaanba dhalinyaradii ay soo saartay ku tacabtay caawa waxaad garatay dee waxaanu anagu garan weynay oo nagaga horeysay dhinac markaan ka eegana mas-uul baad u tahay waad ka milgaweyn tahay inaan keliya ku nidhaahno waad mahadsan tahay waxaan ku yar dareensiinaynaa inaad wax fiican noo samaysay laakiin abaalkaaga ma gudi karno ma jiro qof inaga mid ah oo intuu halyeeyadeena iyo dadkeena qiimaha badan buu ka qoray halkan ku soo bandhigay oo dhammaanteen isugu nimi ma garanayno sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu xasanaadka ugu kordhiyo oo ugu badiyo aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa maayir ku-xigeenku inuu dareenkaa muhiimkaa intuu gartay xilli koobanna uu kaga dhameeyey anigu waxaan ka mid ahay ardaydii hortay ay maamadani soo saartay waxaan ugu mahad celinayaa si aan qiyaas lahayn markii aanu bilownay sidaa dadkoo dhan sheegay Faadimo iyo Sahra iyo inankaa dhintay Ilaahay jannatul firdaws ha ku abaalmariyo Naasir Maxamed Nuur ayaanu ahayn waxaa nala oran jiray cusbitaalku nagu dacaydeyn jiray saddexda islaamood iyo adeerkood waxaa nala oran jiray midowgii maxaakiimta cusbitaalka dhinaca ka qabsaday waxaa lagu oran jiray caruurta والله بالله وانكي أرجع ما جالسنا وانكي أرجع إن أنا جالسنا الناس كلا توقت جاي يتكلموا مني حتى ما الغاضة تنوت كتجسه لكن أنا بقول حن لقيتين أيام قاطي ugu dambeynna munaasabadda maamulka degmada Burco ayaa shahaado sharafyo kala duwan ku maamusay Marwo Faadimo Cismaan Axmed oo kaalin muhiim ah kaga jirta soo saaridda midlaadayaasha caafimaadka gobolada bariga Somaliland iyo gobolka Togdheerba dhankoodana ardaydii ay tacabka badan gelisay Marwo Faadimo Cismaan Axmed ee ka aflaxay Burco Central University College ayaa dhankooda ku maamusay shahaado sharafyo kala duwan Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi